Waxaa la xaqiijiyey 28 tahriibayaal Soomaali ah inay geeriyoodeen, in ka badan 30na ay dhaawacmeen kadib markii ay qallimeen 2 doonyood oo ay saaraayeen xeebaha waddanka Madagascar. 70 qofood ayay doomahan ku saaraayeen, Soomaali ayayna ahaayeen, waxayna galeen xaalad aad iyo aad khatar u ah, taasi oo kala barkood ay ku geeriyoodeen, intii kale ee soo hartana ay noqdeen dhaawac garaab ah oo xaaladoodu adag tahay. Dadkan oo dhammaantood ay u badneed in ay geeri isku wada raacaan haddii aanay helin gargaar degdeg ah, ayaa waxaa arkay kalluumaysato u dhashay waddanka Madagascar, kuwaasi oo u qayladhaamiyey dowladooda, waxaana la badbaadiyey intii yareed ee ay nafta ku jirtay. Kuwii kale oo meydana meeshii ayaa laga soo qaaday. Soomaali ayay dadkaasi dhammaantood wada ahaayeen, waxaana xaqiijiyey safiirka u fadhiya Soomaaliya waddanka Madagascar. Dadkan waxa ay ka baxeen Afrika, weliba intooda badan Kenya ayaa la sheegay inay ka safreen, Madagascar ayay kusii jeedeen, waxayna badda galeen waqti ay aad iyo aad u xun tahay oo dabaylo aad u fara badan jiraan, waana midda keentay in ay qarrimaan. Doonyaha ay saaraayeen ma aysan ahayn kuwo badbaadin kara oo waxay ahaayeen doonyo aad iyo aad u liitay, maadaama ay ahaayeen tahriibayaalna laftooda lagama fakaraynin, taas oo keentay in ay iyaga oo isku jeedo o isfiirfiirinaya ay geeriyoodaan kala barkood, kuwii kalena xaalad miyir la'aan ay ku sugnaayeen marka laga gaaray. Waxa uu sheegay safiirka inta dhaawac ah in la daaweynayo, haddii la daaweeyena ay rabaanba in Soomaaliya ay kusoo celiyaan iyaga oo khatartaasi soo galay, inta kalena meydkooda la iska aasi doono. Xilligan lagu jiro 2024, Soomaali badan ayaa badaha soo gelaysa iyaga oo waqti adag lagu jiro, qaarkood ayaa Afrika ka soo baxaya, kuwo kale ayaa Yurubta dhexdeeda isaga sii gudbaya bado oo kasii baxaya Faranse oo u socda Ingiriiska, waxayna mar kasta wajahayaan xaalad khatar ah oo aad iyo aad u xanuun badan, taasi oo ah dhimasho iyo geeri mid dooro. Ilaa iyo burburkii Soomaaliya, Soomaalidu waxay ku jirtay xaaladdan khatarta ah ee ay badda miciinbidayaan iyaga oo khatarta u bareeraya, waxaana la ogaa in dad badan oo Soomaaliyeed ay ku geeriyoodeen Liibiya iyo inta u dhexaysa Talyaaniga. Hase ahaatee hadda waa ay xirantay halkaasi, waxaana la isku dayayaa in meelo kale la maro oo kasii khatar badan, kana sii waqti dheer, taas oo waqtiyada baddu ay kacsan tahay, waqtiga qaboobaha midna aan loo kala aaba yeelin, waana midda khatarta gelisa dhalinyarada Soomaalida.